markaasuu halkan ay hafeefan biyaa galay may taaban xabaddu way gubtay halkaas sanka dibin iyo dibinta dhexdooda martay markaanu meel dhexe maraynaa ninkii dhaawaca socon kari waayay runtii waxa degan meesha jilibka isagu yahay oo reexareed ahaa dabeedna ninkii wuxuu nagu yidhi war aniga halkan caawa iskaga nasanaya halkaaynu ku jirnaa marka buurtana ka daadegana waa reerahay intii laba habeen baan sii dhaxnay habeen labaadkiina waan hooyanay waxaanu gaadhnay meesha laga caada calxaad ba ka sobaysaa marka waxaanu xidhnay kaba military marka waxaanu ka baxnay meel laba ciidan dhexdooda war waa kuma iyo waa kuma markaan isku celcelinay bid waa cadceed min halkan ilaa intaanu soo dhaafnay bay show ku jiraano saasay noogu soo horgufeen rasaastii jibax baa noogu horeeya xaggoodii buu cararay waanu wada daba yaacnay marka halkii uu jibax ku dhacay oo noqonaysa qiyaastii bartankii ciidanka waxay u qaateen niman kamaan dawsoo gacanta wala nimi yani gacanta ku dagaalamayaan halkii bay ka kala yaaceen way noo baneeyeen dariiqii qolba dhinac bay u yaaceen wuxuu tagay adeerkii ama walaalkii mid ahaan waxa soo sheegay qof isla reerkii horta waxa ka lumay nin fuula ah ayaa ciidankii faqishta ka lumay giddi habeenkii oo dhan buurahaasa cabdiraabow ciduma jawaabto buuraha soo celceliya ilaa intaan buurta ka dhaadhacaynay kale waxa weeye habeenka markii isgaarsiinta la dhex galay waxay nagu keentay khalkhal fara badan ciidan waliba uu sitay rakaalkiisa taliskuna uu haystay waxa markaa nagu dhacay amro kala duwan oo nu garan weynay ma taliskii baa idin la hadlaya waxaan hadlayaa muxuu yahay ma ururadii baa hadlay kooxii baa hadlaya dabeedna waxa dhacday markii aanu aragnay khalkhal galay kooxdayadii anigu taliya unug baan ka ahaa kooxdayada waxaa haystay allahu naxariistay axmed cabdiqaraash ayaa taliya ka ahaa waxaa ka mid ahaa axmed jiinis waxaa ka mid ahaa faysal cali sheekh ragga markaa ka mid ahaa kooxda nin la yidhaha jibaax oon fara badnayn dabeedna waxaan ku idhi taliskan anigaa taliska tegaya ee waxba yaynaan isgaadhsiinta yaynaan dhegaysanin waayo hadalladay markaa kelidaya maa macaa kooxii kale koox baa jirtay axmed xasan oo haystay baxday iyaduna oo ka baxday halkii ay ku jirtay dabeedna waanu caabinay qoladii soo gelaysay waanu celinay qoladii axmed xasanna way ku soo noqotay axmed xasan markaa talisku ku maqan yahay taliskii baan markii dambe isidhi tag taliskiioo isna la yidhi waanu baxnay bax markaa buurtaanu ku jiraa isagu buur yaroo naga sarraysa ayuu saaran yahay taliskiina waan soo waayey dabeedna inaan kooxdeydii ku soo noqdaabaa qasab noqotay waxaanu imi kooxdaydii qura oo ku hadhay meeshoo hareeraha lagaga jiro waana kooxdii ugu dhimashada badnayd dagaalkan buuraha kooxda culays ku dhacay kooxdayadii bay ahayd ee inteedii badnayd dhimantay deetana ciidankii baan geli kari waayey ciidankiioo dee dhinac walba laga ridayo ayaan geli kari waayey dib baan u noqday waxaan helay nin la odhan jiray maxamed cabdi cabdilaahi oo golahay deegaanka hargeysa ahaa oo nin weyna ahaa runtii intaanan helin horta waxaan helay markii dagaalkaanu gallay baasuukaan sutay waan dhaawacmay baasukii waa layga qaado nin la dhaha khaarijiye oo ciidanka ka tirsanaa qaybtii qudhaca naga soo raacday ayaa qorigii layga qaaday kaygina waa loo dhiibay isna wuu dhaawacmay dabeetana qorigii cid kalaa qaaday qorigaygii iyo booshkaygiioo meel ku tiirsan ayaan ku soo baxay waana xambaartay qorigii waan ka tegi kari waaya dabeedna ninkaasaan ku soo baxay golaha deegaankii maxamed cabdi cabdilaahi waxaa kaloo noogu yimid nin lalaa maxamed uraag oo iminka berbere jooga shaqaalaha dekadii berbere ka tirsan maxamed cabdi cabdillahi wuxuu siina ware waa kii dhaawacay qoriga ka qaata isaguna wuu xanuunsanayaa habeenkaa waxay igu yidhi xundhur baa igu dhacdo xundhur baa haysaa dee nin xundhuri ku dhacdayna kamaba soo hadhaynba meesha markaa gaajada iyo dee hawsha lagu jiray qorigiibuu iga qaaday baasuukihii wuxuu ii dhiibay aakee uu sitay xabaddii ku jirteenoo ka saaro wuu ii dhiibay markaa inaanu dee qaadiba karin baad arkaysaa waan isweydiiyo talo muxuu
iyo dee wuxuu isyidhi ninkaa bal wax ka qaado culayska kala dhine anna maan xaalaynin waanu soconnay waanu ilaalinaynay waanu weynay ninkii maxamed cabdi cabdilaahi ee qorigayga sitay waanu ku soo noqonnay aniyo waraagga waanu weynay waraaggii baa isna intuu baadi doonay soo noqon waayey waxaa markaa halkii aniga fadhiya waxaa yimi nin la odhan jiray daa'uud dhaka adag ayaa iskaysu ag taago maasaan kartay markaasaan is idhaa haddaad la hadasho billu xabad kugu dhuftaa deetana magacayga iyo magaciisii baan israaciyey daawudo waa maxamed weeree markaa wuxuu dhegaysanayaa sanqar iyo hadal masidoo kan ciidankeeni waa biljoog hayaa degdegine runtii wuu degdegay wuu tegey ciidankaygii bay noqdeen oo xuseen cabdi weerarkan iyabaa ka mid ahaa halkii baa noogu nimi marka waxaanu fuushannay buur u gudban bariya galbeed ayaanu saarannahay dhinacaa bari waxaa nooga muuqataa dhismo yaroo la yidhi daarimaa la ydhaahdaa ayaa nooga muuqda ninkani sheegaya tusbax la ydhaahdo markaa daarima maalnimadii nin baa loo diray wax kaba si fila xidhan tusbax baa nugu jiray ninkaa tusbax la ydhaahdo ee ninkan yidhi cabdillahi askar buu ku qabtay isagoo caana cabaya tusbax baa looga saaray kabihii ninkii ma soo noqon waay dagaal adag baa nagu dhacay muu soo geli karay wuxuu ku biiray xertii sheekh maxamed raage ayuu ka mid noqday deetana xertii waxaa ku tiri ma noqonaysid haddaad noqoto waa nala laynayaa oo ninkii kaleme baa nala odhan doonaa ninkii xertiibuu ka mid ahaa oo waanu waraysan jirnay halkaasuu joogay wixii dhintay wixii meesha lagu laayay isagaa soo gudbin jiray inta badan magaciisa inuu macsuum la odhan jiray baanu malaynayaa magacii wuu iga maqay lakin waan soo heli doonaa magacana calaa kulli xaal inamadii baanu halkii ugu nimi markaa buurtaanu saarannahay ciidanku bariga galbeed buu gubantay dusheedaanu saarannay waxaanu markaa qorshaysanaynaa in qolana ay sii socoto qolana ay dib u noqoto oo aynu noqonno iyo aynu hore u soconno fooniyihii bay mar labaad soo dhex galeen waxay soo marayaan buurtan dhinaca bari bay ka soo fuuleenoo taaggan aanu saarannay bay soo hayaan iyaguna wayna arkeen xabad baasukaa bay nagu dhex rideen xuseen cabdi wararkan baa markaa xoogaa fallidho badani galeen laba qaybood baanu noqno qaybina waxay u dhaadhacday dhinacii koonfureed qaybina dhinacii waqooyi maanaan yarayn inta waqooyi u dhaadhacday oonu is eegnay deetana markaanu argin in la kala lumayo ayaanu nidhi war inoo sameeya kumaan cid taliya inoo ah markaa nin la odhan jiray maxamed maxamuud jaamac mmj oo macallin ahaayoo 26 juun ka dhigi jiray 26 juun macallinka ahaa ayaan ku nidhi adaa noogu weyne taliyo noqo oonu istirsannay tiradii ma hayo laakiin ciidan yar maanaan ahayn deetana wuxuu markiiba bilaabay yidhi 4 ninoo sahana 3 ninoo sahana soo saaro ciidanka ugu horreeyo dalaqoonkii ku jiro dalaqoonka waxaa loodhan jiray nuur daahir baa loodhan jiray hargeysa ku dhinto 6 buu naga soo galay nuur daahir caamir ayaanu soo saarnay iyo 2 kale anna waan raacay deetana mmj baa igu yidhi dhaawac baata xagga dambe mar qalbigayga waxaa galin la kala lumayo soomaalida marka babisa lagu rido babisaa laga riday la kala ninkaa dalaqoonka uun dabada qabso ayaa qalbigayga ku jirta aniga waan diiday mmj mee taliya xagga horaan joogaya anna saanka 4 igaga dhig sidii buu igu daayey deetana socda baana lagu yidhi buurtu aad bay u dheertay daaddegaanu ka daaddegaynay dhib badan baa naga gaadhay meel dhexaanu ku nasannay waxaa ugu soo horreeya allah u dhaxaystay abaab sheekh ayaa ugu soo horreeya uuna arko kacabuuna yidhi iyo waa hagaag markaa ciidankii qaar xagganay noo dhaafeen hareerahay naga mareen waxaanu ku dhaadhacnay 4 tayadii iyo 8 ninoo kaleoo na raacay baa nala dhaadhacay mmj ma ogeyn aanu dhaadhacnay waxaanu markaa tagnay buurta salkeedii ayaanu tagnay dabadeed mmj baa soo dhaadhacay mmj wuxuu haystaa inaanu ka midnay weli ciidankiisii
oo naan dhaadhicin wayna arkeen markaa sanqadhaanu maqlayna raadka soo socda wayna arkeen waxay u qaateen markaa faqashtiyo meesha fadhida dib inoo celiya bay idhaahdeen sanqadhii soo socotay ayaa naga tagtay dabeed halkii bay nagaga noqdeen waxaanu ogaanay inay noqdeen markaa waanu isku tashannay waxaa nala socda nin dhaawacaa oo la odhan jiray qoorgaab oo intana caloosha dhaawac ka qaba oo maalinimadii naga dhaawacmay qorigiisina waxaa nin la odhan jiray cabdulaahi nuur oo iminka ku dhintay laascaanood cabdullaahi ibraahim oo laascaanood ku dhintay baa qorigiisiina hayay dabeedo ninkii waxay noqotay in laga tegi maayo waa in la qaadaa waanu tashannay waxaa ka mid ahaa anigoo maxamed axmed xaashe maxamed weeraa nin la odhan jiray axmed maxamed geedi afriik oo beri dhow taargeysa ku dhintay reer london ahaa waxaa ka mid ahaa axmed laangare oo iminka wuxuu keenaa tufaaxa magaaladu keenaa markaasaan ku idhaha tufaax keentay wax ka yar adag inaad keentaabaheed baan kula kaftamaa cidiba moodi maysid buuraad sheegaysaa inuu rigees ka riday axmed hurraa la ydhahdaa mar baan kuu keeni haddii aan la ydhahdee waxaa ka mid ahaa nin la ydhaha jibax waxaa ka mid ahaa nin la ydhaha rashiid cumar ismaaciil rashiid case waxaa ka mid ahaa nin la ydhaha maxamed jabutaawi oo iminka laydhku ka shaqeeya oo qoladan guryaha laydhka gelaysa oo yar laangaraya mar dambu dagaalka ku dhaawacmay nin la ydhaha cabdinogob baan u malaynaya imka ciidanka ka tirsan waxay markaanu ku tashannay anigay yidhahdeen taliya unug noo noqo waa hagaag baan ku yidhi haddaba waxaynu yeelaynana iminkaan idin farayaa marka waa buurtanu ka degnay iyo tu ka soo horjeeda oo ka soo jeeda waqooyi dayaxu markaasoo yara baxayaa waxaanu ku tashannay haddii la ina helo layna rasaasay horta inaynaan kala yaacin lin dhaawacana waynu sidanahay hadday noqoto in la cararana ninka horreeyal ku cararayno carayn hadduu xataa iyaga u gelayo aynu meelan wada marno oonu isla qaadannay halkii annagoo fadhinaa ayay rasaasi soo dhacday nin naga midaa naga cararay weli maanaan kicinba waa joogo isagu markaa qolo sii socotuu haystaa ciidanka iyagii war waa ciidankiina kuwaa la rasaasaynaya tawo buu yidhi ninkii sheekada waan ku suu dari doonaa booremu orodkii ku galay dhinacan la ydhaha fuulfuulka ayuu magaalada ka soo galay ninkii reerihii baa u dhex galay isagu wuxuu haystaa halka inuu jooga inay tahay awbarre u haystaa deetana reerihii buu waraystay xeradii xabashiday geeya waxay arkeen inuu lunsan yahay way waraysteen ciidankii buurahan ahaa buu yidhi way si fiican bay u galeen way sooriyeeyeen cuntay siiyeen waxay ku yidhahda waa lagu kaxaynaya laba nin baa ku kaxaynaya way ku hor soconayaan labadaani ninkii markii la dhargiyey laba nin bay raaciyeen awbarray is geeyeen ay ka soo noqdeen labadii nin ninkii inuu ciidanka qaranka ka midiya baan u malaynayaa nin baa garanayo yidhi waan kuu soo heli doonaa ninkaa axmed hurre la yidhaahdo ayaa garanaya halkii annagoo fadhina tiima nagu dhacday 11 baanu noqonnay nin baa markaa ninkaa dhaawacaa baa nagu jira ninkaa markaa marba labaa garbagalaynaya oo dee waad qiyaasi kartaa duruufta lagu jiro gaajo iyo daal dee markaas haddana nin kale sii garbagalaynasana waa dhib weeye laakiin dhibtaa maanaan dareemayne dee naf dhan weeyan ayaa kula socota oo nool ila qofku markuu dhinto waa laga tagaaye oonu deetana dhaqaaqon xaggii bari ayaa noo raacnay buurta dayaxaa soo baxayo waqooyigeedu waa hadhkaasay shoo ku jiraan markaanu soconnay qiyaastii ilaa 50 mitir ayaanu ciidankii u gallay mana arkayno hadhkaa buurta gunteeda ayay ku jiraan had iyo jeer dayaxuna ciiddu way caddahayoo reflection bay bixinaysaa waanu wadayna daraandarno waxba ma arkayno waxbaanu arkaynaa runtii laakiin wax badan baanaan arkayn oo hadhkaa dad ku jira maanaan arkayn waanu soconno nalamay hadan kii u dambeeyey ayaana joojiyey waxaanuu qaadanay markaa anaa markaa uga horreeya jabutaawiga iyabaa igu xigan nilad afrig dabeedna waxaanu isku ogaynaa cid kala hadal aniga mooyaane war waa kuma
markaa afgarashaanu lahayn koox waliba magac bay lahayd iyaguna sidaas leeg weeyaan afgarashii leeyihiin ninkii uuna joojiyey weys caddaan u qaateen axmed xasan oo overcoat buu sitay overcoatkiisa baan u qaatay weys caddaan u qaatay waxaan ku dhawa weys caddaan aamusa war waa kuma iyo waa kuma markaan isku celcelinay buu waa cadceed yani cadceed ma meesha nooma taalaba waxa ku riday markaa waxay ag taagan iska soo ag taagay Jabuutaawi ninka Afrika la Axmed Maxamed Geedi anu qorigeygii degta kama rogan deetana ninkii baan caayay aabbaha iyo cadceed waxa ku sameeyay rasaas bay ku rideen show dhinacan bidixdayada min halkan ilaa intaan soo dhaafnay bay show ku jiraano saasay noogu soo horgufeen rasaastii ninkii dhaawaca maanaan dhigin jibax baa noogu horeeya xaggoodii buu cararay waanu wada daba yaacnay dooxo had iyo jeer u kala dhaadheer yahay marka daadku ku kala dambeeyo marba halka yaroo maree u dambaysa ayaa hoosaysa jibax uu kufay xambaaru cirka maro u xistay qori arbeedheeya xambaaradiibu ku dul dhacay nimankii ku soo jiray safka nin kamida oo qori weysita ninkii bay isla galgasheen nin waliba kala ka carar bisley labadii nin midna buurti buu cararay midna dhinacaas oo marka halkii uu jibax ku dhacay oo noqonaysa qiyaastii bartankii ciidanka waxay u qaateen niman kamaandows oo gacanta wala nimi yani gacanta ku dagaalamayaan halkii bay kala yaaceen way noo baneeyeen dariiqii qolba dhinac bay u yaacday halkii baanu ka korray markaanu meel dhexe maraynaanu fadhiisanay waxa isna halkaas sanka xabadi ka martay ninka horan la yiraahdo markaasuu halkan ay hafeefan biya galay may taaban xabadu way gubtay halkaas sanka dibinta dhexdooda martay labadii qori kii faqashtu wadatay kii arbeedheeg ahaaba halkii baan ku soo wada dhaafnay ninna ma qaadan karo qori buurti baan bartanka galay dabeedna waxaanu ku nidhi waryaarahan bal natiriya miya cid wax qabtaa ma alxamdulillah ninkana qorigiisa ka yimi waa ninkan eed malayna mariya markaanu meel dhexe maraynaa ninkii dhaawaca socon kari waayey runtii waxa degan meesha jilibka isagu yahay oo reer xareed ahaa dabeedna ninkii wuxuu nagu yidhi war aniga halkan caawa iskaga nasanaya halkaynu ku jirnaa marka buurtana ka daadegana waa reerahayagii oo waxaa ku dhawaaysnaa qoladii sheekh maxamed raage xirtaasaa ku dhaweyd ninkii halkii buu igaga taga qoorgaab baa la odhan jiray waa noo ducaynay wax kaloo maanaan qaban karin waxaanu siinay bambooyin sonkor mid baa sonkor aanu ka helo sonkortiina waanu uga qaadno aanu siinay qoorgaab subaxii markii waagu baryay buu baxay waa sheekadan markii dambe heli doono wuxuu tegay adeerkii ama walaalkii mid ahaan waxaa soo sheegay qof isla reerkii ah waliba gabadhii ninkaasi qabay ayaa loo badiyaa ayaa soo sheegtay halkii baa lagu dilay intayadii kale halkii baanu ka baxnay buurta daadegeeda kale ayaanu ka daadegnay waxaa markaa jira raadiyi waanu sidanaa weli nimankii baa la canaantay horta waxaa ka lumay nin fulo ah ayaa ciidankii faqishta ka lumay kowdhe dabeedna nin baa lumay ninkii wuxuu ka xusuustay ciidankii uu ka lumay nin la yidhaha cabdiraabi giddi habeenkii oo dhan buurahaasaa cabdiraabow cid uma jawaabto buurahaysuu celceliya ilaa intaanu buurta ka dhaadhacaynay kale ninkaa waanu maqlano ninkii baanu xamalnoon ninkaas kolley waa fule ama deegaankaanu ahaynoo waxaanu kala garanayn dhulka cabdiraabi nin la yidhahdana way kaga dhigtay cabdiraabow waryaa cabdiraab waarila hadal buurtii baanu ka daadegnay horta markii aanu ciidankii aanu ku dhex dhacnay kala yaaceen waa la soo canaantay ciidankii fooniyaanu ka dhegaysanaynaa oo frequency-gay naga soo dhex galeen ayaanaan ka bedelino kiibay ka wada hadlayaan war ma 10 inan baa qaban kari weydeen ama wax ka reebi kari weydeen hadda ka daba taga intaanay gaadhin meel heblaayo hareeraha markaa naga galeenoo bariya galbeed ayay naga mareen fooniyaha lagu hogaaminayaa
dalaqoonkii baan nagu jiraa nuur daahir caamir annagu nala socdaa rawaanigii dabada qabsaday anugu isagee dabeedna meeshii buu sheegay intaanay halkaa gaadhin uga horreeyo halkaa ka xidha waxaa markaa jirta markaanu buurta xoogaa soconno hal dariiqoo keliya ayaa laga degaa intaanu ku beegannahay dariiqii weli ka xidha waa niman dee dharagsan oo soo casheeyey dabeedna waxaan isla garanay inay nooga dheeraynayaan halkii baanu iskeer fadhiisannay qiyaastii markayna dhaafeen ayaynu dhinacii galbeed u kacnay oonu daba martaynay waxaanu kala siimannay xagga galbeed haddana halkii baanu ka daadegnay iyaguna tii kale xidheen waxaan noogu tagnay meeshii reer qiyaastii aanu sindhugu guurayaa haamihii biyaha dheelahan biyaha lagu shubto soomad erega haamaha ayaa yaalla biyo hagaagsan oo nadiifa halkaasaa noogu horraysay deetana weysooyinkiina waanu ka buuxsannay waddaa markaa martaa daarimo ilaa oo bariya galbeed u socota waddadaa ciidan baa la dhigay waxaa maraya beebe baa xidhiidhinaya ciidanka oo isna u socda bariya isna xaggaa u socda marna xaggan u maraya marka meelaha ciidanku jooga waxaanu ku garanaynaa beebeegaas uu socda istaaga deetana halkaasay hadalkooda haddana halka labaaday joogaan markaa waxaanu ka baxnay meel laba ciidan dhexdooda oo waxaa loogu talagalay wixii buurti ka soo degaa in ciidankani halkaa ku hor joogsado halkaa kula dagaalamaa markaa beebeegaasaa na caawiyey marba ciidan buu isla taagayaa xoogaa baan isu jiraa ilaa 100 mitir ama ka badan dhexdoodii ayaanu ka baxnay markaa 10 qof baanu noqonnay 12 baanu nahay waa kii naga cararay ninkii dhaawacana waa kii yidhi iga taga 10 kayagii ayaa halkii maray waa berigii markay ahayd baanu meel yar saxseexanay markii waagii iftiimay baa wuxuu yaqaanay ninkani meelaha jilaalka aan biyaha meelaha durdurkeen biyaha aanay biyuhu ka gurin deetana halkii horreysaan sultaga deetana ciidankii dowladda faqashtii baanu ugu tagnay waanu ka soo noqonnay namay arag iyagu waanu ka noqonnay dabeedna waxaan noo baxnay waqooyi baanu soconnaa oo aanu doonayno inaan raggii ka daba tagno oo ballantu waxay ahayd in hore uun loo sii socdo runtii laba habeen baanu sii dhaxnay habeen labaadkiina waanu hooyanay waxaanu gaadhnay meesha lala caada calxadh bay ka sokaysaa marka waxaanu xidhnay kaba military kabihii Itoobiyaanka ee ciidanka markaan wax raada weynay ayaanu si waxba kama horreeyaane dubul noqda halkaa ku jooji